dadku inay maqlaan qof qarax loo xiray qof qarax loo dilay qof qarax xilka looga qaado waa inay maqlaan hay'ad amni waxaan ugu baaqaa qarax iskama imaanin dadku dareenay qabaan shaki ay qabaan waxaan aaminsanahay qaraxyadaasu inay dani gashay inay masaalix gashaan aaminsanahay maanta ka bacdi qaraxyada waxaan rabnaa ina wax faa'iido laga raadin TV-ga Shabeelle fursadda aad siiseen marka hore waxaan rabaa inaan ku bilaabo magacayga Maxamed Xasan Xaad waaye oday Soomaaliyeedaan ahay waxaan rabaa inaan galabta dagaalka looga soo horjeedo qawaarijta oo ummadda Soomaaliyeed ay ku jirto inaan wax ka iraahdaan rabaa waxaan ku horeynaa marka hore mahadcelin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudan Xasan Sheekh Maxamuud runtii madaxweyne waa ku taageeraynaa waana ku faraxsanahay hindisahaaga ahay argagixisa la dirirka oo aad ummadda Soomaaliyeed u cilaamisay guulaal laga gaaray saad ogtahayba walina ma xaqiijin guulihii oo waxba ka dhiman faano la faray kama qodna marka madaxweyne waa ku mahadsan tahay hindisahaagi shaabka la dirirka qawarish la dirirka waa ku mahadsan tahay waxa kale oo sidoo kale ayadan u mahad celinaa ciidanka ummadda Soomaaliyeed dadka shacabka ah kacay noo sunneeyay oo na tusiyay oo fariin faray ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan karto oo ah in shabaab laga adkaa karo oo dad rayidoo caadi ay inta dagaal ku qaadaan ee wadankooda ay ka xoray karaan ayagoo kaalmaysanaya dawladda Soomaaliyeed ciidamadeeda iyo saaxiibada beesha caalamka intaba marka waxaan leenahay isku dubaridkaas madaxweyne markoobaad iyo marhaba waa kaaga mahad celihiina balse waxaan rabnaa hadda lafteed dagaalka waxaan isleenahay meeshi laga rabay waaga lama gaarin guulaha hordhaca waa ka mahad celihiina cid kasto ku yeelatay ama saameyn ku yeelatay waxaan rabnaa in la xaqiijiyo guushaas waxaan rabnaa in ummadda Soomaaliyeed dagaalka si buuxdo oo mugla ay u gasho maxaa yeelay intii koox dhibtaaho wax badan ma dhibto waxaan rabnaa inaan loogu simin ciidamada kaliya iyo dadka deegaanka oo macaawsileyda magacaas la baxay marka waxaan rabnaa in dagaalkaas si uu shabaab looga adkaado oo guusha loo xaqiijiyo in dadka Soomaaliyeed waa bahbah ama waa item odayaashu roolay leeyihiin ganacsata roolay leedahay culimo diinku roolay leeyihiin kullu dadkaas oo waxay leeyihiin qaybo walba qaybta ay ku fiican tahay ama ay ka dagaalamto inay ka dagaalantaan rabnaa dawladuna waxaan rabaa inay hormuud waaba u tahay inay hormuudnimada tayeyso oo madaxnimadu waa haybad dawladdu waa haybad in dawladnimada laga muujiyo furmaha dagaalka si dadka moralkooda iyo ciidamada uu dhismo marka waxaan rabnaa madaxweyne arintaas inaad laba kaclayn iyo saddex kaclayn iyo afar kaclayn aad soo rogtid guulaha shabaabka laga gaaray iyo horumarka laga si loo xaqiijiyo mid kale waxaan rabaa si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka u dhashay Galmudug iyo Hirshabeelle si gaar ah dagaalka inay u galaan waxaan rabaa furumaha dagaalku hadda ka socdo waad ogtihiin guulaal laga keenay laakiin guulihii wali waa half waa 50-50 waxaan rabnaa in la xaqiijiyo guulahaas waxayna xaqiiqo ku noqon karaan oo ku rumay karnaa inaan nimankaas ka adkaano in la tayayo dagaalka wax kasto dagaal oo ku hagaay karo in lagu hagaajiyo waa la ogaa dagaalku wax bani aadan galo laga shaqay u dhib badan yahay nafta ku bixi dhiiga ku baxa oo daadana ee hantiya lagu baabi'ina waa dala la kala qabsana waxaan rabnaa wax kasto dagaalkaas guushiisa salkeeda lagu gaari karo in dadka Soomaaliyeed ay galaan odayaasha waxaan ugu baaqayaa Galmudug iyo u dhashay Hirshabeelle dagaalka inay u galaan sida ninka la dhihi jiray muxuu ahay ilma hagar marka runtii waxaa noo dhiman talaabooyin badan oo horumar keeni kara ilaa hadda waxaa noo muuqda gaabis waxaa kaloon rabaa shabaabka dagaalkiisu waa cibaado waad dhageysateen culimada dadka Soomaaliyeed waa muslim boqolkiiba boqol qof maanta shabaab ay ka qarsan tahay say u balmarsan yihiin islaamka iyo diinta islaamka ka sheegayaan beenta qof walba waa xaqiijisay waxaan ka rabnaa marka in laga faa'iideysto kacdoonka shabaab looga soo horjeedo ama qawaarijta looga soo horjeedo waxaan rabnaa inaan dagaalka la isku hakran waxaan rabaa inaan idin sheego isu sheegno dagaalka geeridu ma taal meesha dagaalka geeridu ma taal waad ogtihiin bal xasuusta Soomaaliyeed ama
meesha uu ka dhacay sabab 2 iyo sabab 1 xasuusta waxaad xusteen beledweyne wixii ka dhacay waxaad ka xusateen wax kasto ka dhacay ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda ka dhaco qaraxya meeqa ku dhimatay wallahi hadii dagaal kala galo intaas nuskad aysan ku dhimanin marka waxaan rabnaa isu sheegaynaa dagaalkaas in si buuxda loo galo qaasatan waxaan rabaa inaan maaragtay furimaha hadda oo galmudug oo hadda la ogyahay dagaalka meesha looga jiro iyo maaragtay Hirshabeelle oo looga jiro meesha aadan yabaal iyo muxuu ahay run midgood iyo midka looga jiro muxuu ahay meesha la yiraahdo ceel garas iyo qaa'ib waxaas oo dhan waxaan rabaa in la tayeeyo in la mideeyo dagaalkaas inuu dagaal la guubiyo guubinta Soomaalidu waa taqaanaa in la guubiyaan rabnaa bulshadana waxaan rabaa kullu madaxda in meeshaas laga wada muuqdo si aan maaragtay cadawga isaga dul qaadno waad ogtiin wax dhaqaale meeshaas ku baabay waad ogtiin wax gabar asay ku qaaday waad ogtiin wax maanta agoon noo jooga wallahi haddaanan guntiga xidhan oo sida loo baahan aanan u dagaal gelin dhibkaasuna deyn maayo waan ugu daba dheeraaday waxaan rabnaa maanta inaan ka faa'iideysano ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideyno annaguna culays iska dul qaadno marka waxaan ugu baaqayaa odayaasha saaxiibadeeya waad ogtiin dagaal badan aan soo galnay kan waa kii ugu xaqnimo badnaay waa kii ugu saxsanaay waa kii ugu faa'iido badnaay waxaad ogtihiin oo kale dadku waa wada culumo ama culmo la jir waaye qofkii shabaab dilo ama qawaarijtu ay disho waa ahlu jinna sida culimadu noo sheegtay kii asaga dil kii ayaga dilana waa ahlu jinno qasaaraba ma leh midda kale oo saddexaad oo lamida ama la fiican waxa weeye inaad dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada ka rafciso oo dhibaatada haysata aad ka fujiso waa la og yahay lama cibaadeysan karo lama ganacsan karo lama safri karo horumar lama samay karo waxa ay ummadda ku haayaan waad ogtiin mi iyo magaalaba ummadeena hatta waxaan aaminsanahay oo sax ah haddii maanta dhiigga daadanayo oo joogsado in ilaahay abaaraha naga rafcinayo roob la helayo barwaaqo la helayo horumar aan la filin inuu imaan karo oo ayaga in meesha laga saaro darteed uu ku imaan karo marka horumar oo ayaga nooga aadan cibaado ayaga nooga aadan sharaf la masaajida lagu dukada waad ogtiin barkooda ama inta badanba ummaddu ma ganacsan karto inta ganacsiga ku jirta baaday ku haayaan oo dhaqaalahooda ayaga nus qaato waxa ay nagu dilay dadku ku dilayaan waa dhaqaalihii annagu ay naga dhaceen oo naga bariiqaysteen oo naga baadeen marka waxaasoo dhan waxaad moodaa waa soo noqonayaan marka waxaan si sax inaan u fikirno ummadda Soomaaliyeed maanta hal waxa u furan wado oo kaligiisa waa in shaab laga xoreeyo wadanka waa in qawaaris laga xoreeyo wadanka taas kaliya noo furan waxaan rabnaa dawladdeena waa u mahad celihayna waana sunnaysay waana horkac waan inaynu horkacdo waana hor joogtaa laakiin waxaan rabnaa haybadda baawurka madaxda in la geeyo meesha oo dad bulshadu aamini karta ay ka muuqdaan ilaa hadda waxaad moodaa ciidamada muuqda kaliya no marka waxaan rabnaa si dagaalka dadku ay xataa dadka duurka ku jira ay u soo baxaan oo yu aaminaan in laga muujiyo meesha dad haybad laho oo la aamini karo bulshada ru'aasadeeda ah culimo diinkan ka wada odayaashan ka wada ganacsatadan ka wada waxaan ka wadaa mataqaanaa saraakiisha waaweyn waxaan ka wadaa siyaasiyiinta waxaan ka wadaa qaybaha ka kooban bulshada ay ka koobanto dhan qolo walba waxay leedahay madax iyo hogaamin lagu yaqaano dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa si gaara oo waliba u dhalatay Galmudug iyo Hirshabeelle waxa horumarkiina hortaagan waxbarashadiina shaqadiina inta wax baratay inta wax baranba waxa noloshooda hortaagan waxa waaye waa qawaarijta waxaan rabnaa qawaarijta inaad u guntatiin adinka boodi kara adinka dhici kara adinka dhamashadiina inta ku dhimata sooba 1 iyo sooba 2 hadii 20 sano dagaal lagu jiro dhimame laakiin waxaan aaminsanahay dagaalka uusan bil qaadanin hadii la wada galo si xaraga loo galo oo si hufan oo buuxda loo galo marka waxaan leenahay qolo walba hays xilqaanto dawladdu kacdoonkaas hadnooga faa'iideyso kaliya askar la daabulin meesha goobaha dagaalka hal la geeyo dad macna leh oo dadku aamini karaan sida hadda dagaalada loo galay oo Hiiraan ama Hirshabeelle runtii waxaa muuqanayay dad haybad leh bulshada magac ku dhaxleh marka kuwa hadda dagaalka ku jiro galay waxaan rabnaa intaas oo inay meesha ka muuqato askarta furmaha ku jirta waa u mahad celihaynaa kii idin ka dhintaa waa jannow gala kii ka dishin jannad ku galaysiin wax qasaara haba yaraatay daba ka shaab ma lahan qofka dhimatana waa ahlu jinno kay ayagu dilaana waa ahlu jinno ka dishinna waa dhibkiisana waa ummadda waa uga faa'iideyseen adinkuna waa ka faa'iideysateen ummadana maaragtay muxuu horumaray u tahay marka dhiigiina ilaahay u bariyaysta ka ajir dalba si niyad leh oo hufan dagaalka waa ugu jirtiina
ولا بجبارة ما دحر الدلك أنا وحن كرهنا دجال كاس إن هيبت لا يالو إن تيال لا يالو إن دتني معنا لا يالو دجالك وحن ربنا إن وحبنا ودجال أبهانيها وشغل اللي قبته الدون كلا قبته وح أقول بدن واي محي نفط قالي جاك وجوء هنتدي ياكو بابئ داوع كإيمانا قح كإيمانا وحصلنا وح أقدر الدون كله نفط ينعب تواي لكن وحكدنا بيان ربنا إن نجارنا وجوشه فائدة وحن أسود جدنا هذا أبنك واحد ذكر واحد داعي عفوا الله أما سلف أما هلا يسود بجوج أما هلا يسود بجوج لكن أنا قلت وحن روا إن دور شريف كقاته هي أبنك وحن وباقة قرح اسكما إيمانين تدخل درياني قبان شكي قبان وحن آمن سنة قرحية إني داني قشي إني مصالح قشان آمن سنة ما أنتك بعد قرحية وحن ربنا إنا وحفة إذا لقى وحن ربنا سيه فنو ومدى الضيق oo dadkeena uu ku mira dhaaroobi karo oo maaragtay faa'iidiisa aqrabida ay ku jirto qarax loola tacaamulo qaraxyada waxaan rabnaa qarax iskama iman karo qarax ma iman karo fiiri qaraxa jidadka wad aragteen baabuur kasta oo jidkaas mara waa inuu ku mara aqoonsi ama waa inuu ku mara waxa la yiraahdo xiriir samee labadaas mid ku mari kara iskama mari karo cruise lagu soo ridin qarax cruise ma badda cruise ka soo dhacay ma aha dhulka uu soo maray ama waa lagu sameeyay guri hadda ruux amarku wax lagu sameeyo laakiin waxaan hay'adaha abnigu inay foojignaadaan inay indha dheer u yeeshaan in la ismaarata ciqaabo qarax sababtu ku yimid qofkii lagu tuumo in la ciqaabo dadku inay maqlaan qof qarax loo xiray qof qarax loo dilay qof qarax xilka looga qaado waa inay maqlaan taasina hay'adaha abnigaan leeyahay iyo madaxda dalka waa in la maqlaa isbedel waa inaan maqlnaa haddii kale maalin walba qarax buk 200 qofood qartab 500 qofood baraawac intaanu antiya dakam waxaas marka wax la aqbali kara ma waxaan rabnaa madaxda qaranka inay qaraxyada iyo maaragtay balaayada iska soo galay magaalada in dad loo xiro